lagu geyn karaa maanta waxa yaala go'aankii maxkamadda sare in ururadii la furo aniguna go'aanka maxkamadda sare sidiisaan fulinayaa fulin buu taagay waxa isaguna ka horeeya sharciga oo yaala waynu ku murannay maxkamadda la geeyay fulin baa taalla maxkamadda sare waxay soo gudbisaa intaasoo dila oo naf bini'aadmi ah oo qisaas galay oo loo qisaasayo qoraaq bay soo qortaa waxay ugu tiraa fuli waa fuliyaa sharci go'aan siyaasadeed sidaan u fuli karayn waa la fulinayaa waana furayaa xisbadii hay-adaha dowladda ee arrintaasi hawl ka soo gasho tu nabadeed tu sharci tu talo waxaan ka codsanayaa inay maxkamadda fulinteeda la wadagala joogsado oo aanay muddadu inagu dheeraana wakhtigoodii la furo kaasi waa ta xisbiyada doorashada madaxweynuhu sidaan maalintii alla hadlaayay labada golob u sheegay madaxweyne dusha ka saaranta waa inaan fuliyaa hadday dahdaan ana lagu eedeynaya maxaad u fuli weydey waxaan uga jawaabayaa qaranka maxaa loo fulaya hadday dahday bini aadmina wasaabaa dhici kara iyadana waxaa loo raacayaa sharciga qaranka xisbiyada mucaaradku sharciga gacanta kuma qaadan karaan sharciga isma hortaagi karaan waxay tirsanayaan sifo sharciga u tirsanayaan laakiin dood ma geli karaan fulinta sharciyada taana waxaan u furayaa xisbiyada sharciga ku dhaqmaan wada hadal iyo wada xaajood sidaan ballan qaaday maxamedka ahi waa joogaa guddoonka xisbiga sii haya iyo hogaankii oo dhammi wiigaa soo socda waa inuu kulankii kooban dhaca ee xisbiyadu oo aanay soo dhadhoweeyaan waxyaalaha ka dhiman ee isku afgaran ay dhexdooda ka dhexeeya inay dhammeeyaan xisbina sharciga gacanta ku qaadan maayo kulmiye munaasabadaha qaranka tii tribuunka tii inta xaflad dhacday qaranka calankiisana ma soo qaato si gaarna uma sheegto xisbiyada kale waan ugu dul qaadanay laakiin qaarnimada waa ku gaf hadday ka hari waayaan sharcigu baa la marin doona ay ku biya cabbeen aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa kulmiyo oo dhan meelay joogaanba inta maanta halkan wakhtigooda fadhiyey waxaynu waynu ku dhammaysanay waxaynu inoo hadhana waynu dhammaysanaynaa kulmiyo wuxuu diyaar u yahay maalintay dhawaaqdo guddida weerarada furaysaa inuu noqdo xisbi ku meel gaar ah oo ururada soo socdo la tartamo wuxuu ka filayaa oo laga sugayaa iyagoo buuq iyo qaylo samayn qarankana aan khalkhal gelin labada xisbiye kalena inay sidaa aqbalaan sharcigu siduu yahay haddii aqbali waayo sharci bay jebiyeen sharcigu baa lala tiigsanayaa dhibaata ma jirto aad iyo aad baa umahadsan tihiin qoladii xidigihii iyo baan iyo xisbiyadii qoladii hore xisbiga kulmiye aasaaska yidhaahda cabdifaash iyo kooxdiisina waa u mahadnaqayaa maanta in badan baa fadhido wakhtiga annaga qaadanay na dhegaysta marmar bay dee siyaasadu saa yeelaane aad iyo aad mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu